diyaarad ayaa la xabadeeyey diyaarad ayaa soo dhacday koonfur galbeed waa ay beenisay dawladda federaalkana waa ay ka hadashay gudoomiyaal ayaa la kala magacaabay xaaladana waa ay cakiran tahay wararkaasi oo idil waa kuwii ugu dambeeyey ee saacadihii lasoo dhaafay dhigahaga ku soo dhacayay daqiiqad kasta iyo second kasta laakiin maxaa ka cusub koonfur galbeed ma saxba in diyaaraddii maanta la sheegay in la soo riday ay si markaasi kadis ah ugu degtay magaalada baydhabo yaase lahaa halkan ayaan kugu soo gudbi doona saaxiibayaal wararkii ugu dambeeyay haddii ay markaa kugu horeysay ee aad nagu soo booqato halkan soo dhawow nagu soo bir oo channelkeena subscribe saaro sidoo kalena qaybta hoose ee faaladana aragtidina nagula wadaaga mar kale soo dhawaada saaxiibayaal muuqaalkana meel dheer nala gaarsiiya saaxiibadana la sii wadaaga si uu muuqaalka meel dheer u gaaro aana u helno saaxiibo wanaagsan sida idinka oo kale mar kale soo dhawaada saaxiibayaal wararka ugu dambeeyay koonfur galbeed ayaan eegi doonaa iyo guud ahaanba xiisada u dhaxaysa dawladda federaalka ah ee Soomaaliya lafta gareen ayaa arrimo la yaab leh dhisaya ama dhigaya taas oo dawladda federaalka Soomaaliya ka careysiisay maxaa ka cusub gobolka Shabeellaha Hoose wado muhiim ah oo isku xirta Awdhegle iyo Mubarak oo maanta ay ka howlgaleen ciidamada ilaalada nabad ilaalinta Soomaaliya ee awsam lagu magacaabo ayaan halkan idinku soo gudbi doonaa saaxiibayaal ee soo dhawaada Cumar Guux ayaan ahay aynu ku bilownay waxa baraha bulshada la isla dhaxmarayay in diyaarad gaar ah oo kuwa militariga ah ee waliba helicopter ah oo ka duushay magaalada Muqdisho ee caasimada dalka oo ciidan waday ay koonfur galbeed soo riday laakiin wararkaas ayaa noqday kuwa aan waxba ka jirin saacadihii la soo dhaafay waxa siyaabooyin kala duwan warbaahinta ula hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska maamulka koonfur galbeed wasiirka amniga gudaha warar kala duwan ayaana koonfur galbeed wasiiradeeda ay soo saareen si gaar ah wasaaradaha amniga iyo warfaafinta intaba waxaana sidoo kale la tilmaamay inay jirtay diyaarad saacadihii la soo dhaafay la xabadeeyay oo waliba ay dhaawacyo soo gaareen korka sare ee diyaaradaha taas oo waliba dib ugu soo laabatay halkii ay ka kicitintay kadib markii koonfur galbeed ay ku eedeysay diyaaradahaas in ay doonayeen inay ciidan ka dejiyaan degmada Waajid ee gobolka Bakool taasi ayaa keentay in xaaladda ay sii adkaato waxaana sidoo kale la warinayaa in ciidamada howlgalka kumeel gaarka ee Soomaaliya u jooga ay guud ahaantoodba diyaaradan lahaayeen oo helicopterta ahayd ee la tilmaamay in lagu soo riday gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaarka dawlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa war ka soo saaray arrintan waxaana waliba uu faahfaahiyay warbaahinta bulshada warar lagu baahiyay oo uu ku tilmaamay inay yihiin kuwa been abuur ah oo lagu doonayay in lagu marin habaabiyo guud ahaanba bulshada Soomaaliyeed taliska war-saxaafadeedka uu soo saaray ayaana u qornaa sidan taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa si cad u beeninaya wararka been abuurka ah ee lagu faafiyay qaar ka mid ah warbaahinta iyo baraha bulshada kuwaas oo sheegaya in diyaarad nooca helicopterta ah ay ku dhacday magaalada Baydhabo ciidanka xoogga ama taliyaha ama taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa uu xaqiijinayaa in warkaas uusan waxba ka jirin isla markaana uusan jirin wax shil ah oo noocaasi ah oo ka dhacay Baydhabo ama deegaanada kale ee ku xeeran wararkan been abuurka ah ayaa u muuqda kuwa lagu doonayo in lagu marin habaabiyo shacabka Soomaaliyeed laguna weeqo kalsoonida hay'adaha amniga dalka taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa uu ugu baaqayaa warbaahinta iyo bulshada inay ka feejignaadaan faafinta wararka aan la hubin isla markaana ay xogta saxda ah ka helaan ilaha rasmiga ah ee ciidanka ugu dambeyn taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa uu xaqiijinayaa in xaaladda amni ee Baydhabo ay tahay mid degan ciidankuna ay si buuxda u gudanayaan waajibaadkooda qaran hadalkaas ayuuna soo saaray taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo uu kaga hadlayo arrinta la xiriirta diyaaradan la sheegay inay ku dhacday gudaha magaalada Baydhabo xarunta kumeel gaarka ah dawlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya kadib markii rasaas ay la dhaceen ciidamada degmada Waajid ku sugan ee gobolkaasi Bakool ee dhinaca madaxweyne lafta gareen garabkiisa haddaba Baydhabo maxaa ka cusub kulamo kala duwan iyo shirar ayaa caawa iyo saacadihii la soo dhaafayba ka socda gudaha magaaladaasi Baydhabo ee xarunta kumeel gaarka dawlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen waxa uu u muuqdaa in guulo muhiim ah uu ka gaarayo dagaalka uu kula jiro dawladda dhexe ee Soomaaliya lafta gareen waxa uu isku hareereeyay ciidankii ugu badnaa waxaana hub iyo ciidanba uu ka helay dhinaca maamulka Jubbaland iyo dawlado kale oo deris la ah oo waliba la tilmaamay in dawladda Itoobiya ku jirto magaalada Baydhabo waxaa la tilmaamay in ciidanka Itoobiyaanka ah ee ku sugnaa gudaha magaalada
iyo guud ahaanba daafaha magaalada ay ka bilaabeen roondooyin ay ku doonayaan inay kaga hortagaan fal kasta oo lagu carqaladeyn karo ammaanka guud ee gudaha magaalada baydhabo xarunta kumeel gaarka ah dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya. ilaha muhiimka ah ee aynu soo xiganay waxa ay sheegayaan gaar ahaan afhayeenka madaxtooyada dowlad goboleedkaasi in uu tilmaamay in saacadaha soo aadan war farxad leh uu u soo yeerayo shacabka ku dhaqan deegaanada koonfur galbeed ee Soomaaliya. isla sidaas oo kale wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedkaas ayaa wacad ku maray in koonfur galbeed cidna aysan uga heebeysanaynin amnigeeda iyo guud ahaanba masiirkeeda ummadeed ee deegaanada maamulkaas si gaar ah meelaha hadda ay dowladda federaalka Soomaaliya ku daabulayso ciidanka xaddaafka ah ee tirabeelka ah ee weliba qaarkood ay tababaraan dowladaha Imaaraadka Carabta, UK iyo dowlado kale oo ay ku jirto dowladda Turkiga kuwaas oo dhammaantood loo adeegsanayo dana gaar ah. Horay ayaa dowladda federaalka Soomaaliya dowladahan waxay uga codsatay in ciidanka loo tababaro oo ay kooxda shabaab la dagaalamayaan. laakiin warqad ay soo saartay koonfur galbeed saacadii la soo dhaafay waxay ku eedeysay dowladda dhexe in ciidamadaas qeybaha kala duwan ee dowladahaasi ay tababaraan si gaar ah loogu adeegsanayo dana gaar ah oo shakhsiyadeed si gaar ahna uu u adeegsanayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo weliba hadda ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya. marka laga tago guud ahaan umurahaasi oo idil waxaa jira in xaaladda Buur-Hakaba iyo Qansax Dheere ilaa iyo Baydhabo ay tahay mid aad u kacsan. ciidamadii ugu badnaa ayaa halkaas la isugu geeyey dowladda dhexe ee Soomaaliya saacadii la soo dhaafay ciidan ay u dirtay magaalada Barawe sidoo kale Buur-Hakaba ciidan kale ayaa loo diray Xudur isla sidaas oo kale saacadii la soo dhaafay waxaa jira hadalhayn xoogan oo ku aadan in xaaladda ay ka sii dari karto dagaalna laga yaabo inuu sii qarxo. laakiin arrintaas guud ahaanba koonfur galbeed waa ay beenisay waxayna sheegtay in cid kasta oo amniga koonfur galbeed lid ku ah ay gacanta ku dhigi doonto sidoo kalena gacan bir ah lagu qaban doono. madaxweyne lafta garan waxa uu muuqdaa in dagaalka dowladda dhexe uu kula jiro uu ka gaarayo guulo muhiim ah. ciidankii ugu badnaa oo daraawiishta maamulkaasi ah ayaana lagu wareejiyey gudaha magaalada Baydhabo. doorashooyin ayaa dhacaya saacadaha soo aadan ama maalmaha soo aadan si gaar ah isbuucyada soo aadan oo la filayo in guddigii la doortay uu ku dhawaaqo jadwalka doorashada soo xulista xildhibaanada ilaa iyo kursiga madaxweynaha koonfur galbeed oo la doonayo in guud ahaanba doorashadiisa ay ka dhacdo gudaha magaalada Baydhabo xarunta kumeel gaarka ee koonfur galbeed Soomaaliya. shabeellaha hoose dhaqdhaqaaq ciidan ayaa ka socda isla sidaas oo kalena waxaa ka socda xaaqista wadooyin muhiim ah oo ay dowladdu u aragto in ay ku dagaalami karto oo weliba uu yahay dhul istiraatiiji ah. Mubaarak iyo sidoo kale Awdhegle wadooyin isku xira maanta waxaa gaaray saraakiil ciidan oo kuwa awsam iyo kuwa xooga dalka Soomaaliyeed isugu jira. halkaas waxay ugu tageen geedo weliba xad dhaaf ah oo dagaalamayaasha al-shabaab intay halkaasi haysteen ku dhaafeen si ay difaacyo ama gabaad kaga dhigtaan. ciidamadii guud ahaan awsam iyo kuwa militariga Soomaaliya oo garab ka helaya maamulka deegaanka Mubaarak ayaana wadadan kormeer ku sameeyey iyaga oo weliba cagafyada ay wateen iyo guud ahaanba gaadiidka ciidanka la arkayay iyaga oo ku gaafureeyay wadadan xaqisteedina ay bilaabatay si bulshada halkaasi ku dhaqan ay uga faa'iideystaan sidoo kalena ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uga gaashantaan in weeraro jidgal ah loogu qaado oo loogu soo gabado geedahaasi inta badan kooxdu ay halka ku ilaaliyeen. marka laga soo tago xaqistaas iyo guud ahaanba howlgallada socdana waxaa jira guud ahaan gobolka inuu wajahayo xaalad adag. ciidankii dowladda federaalka Soomaaliya ee halkaas ku sugan ayaa dhaqdhaqaaq bilaabay. koonfur galbeedna hadda meel si rasmi ah loogu tilmaami karo oo ay gobolkaasi ka haysato afgooy deegaanada kale ee hoostaga ayaa ka jira oo qaarkood iyagana hal ku taagan oo ciidamada jooga la filayaba in maalmaha soo aadan ay ka sii baxaan oo ay Baydhabo tagaan. wuxuu ku soo kordhay saaxiibayaal xaaladan guud ahaan diyaaradda la isla dhaxmaray in la riday oo ay koonfur galbeed beenisay taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo warar been abuur ah ku tilmaamay arrimahaasi oo idil. barnaamijyadan wararkeena dambe ayaa idin kugu soo gudbin doona wixii ka soo kordha xiisadan oo cirka isku sii shareereysana saaxiibayaal idinka ayaa noqon doona dadka ugu horeeya xogahaasi hela. haddii aad ila dhamaadka la soo gaartay nagu soo biir channelkeena subscribe dhaho qaybta hoose ee falada dhagtiina nagu la wadaaga sidoo kalena saaxiibadana la sii wadaaga muuqaalkan.